wasaarad ahaan adiga door weyn bay ugu jirtaa marka dawlad deegaanka loo eego isbedelada tolmoon ee la filaya inay hore u hana qaadaan bay ka mid tahay xiriirka wasaaraddaada iyo socdaalkaagan Somaliland iyo walibana mashaariicda hadda laga hirgelinayo dekada Berbera sidee bay isula jaan qaadi karaan maalgashi badan baa lagu sameeyay awoodii iyo capacity-gii dekada sare loo qaaday wasiir mubashir waxaad ka mid tahay wafdiga madaxweynaha ee soo gaaray Somaliland marka maalgashi iyo ganacsi iyo siyaasad iyo xiriir diblomaasiyad intaba la eegayo halbowl ayuu dhanka maaliyaddu ay u tahay taasi dhinaca kalena waxaanu haysanaa 100 milyan oo maaragtay Ethiopia ah oo population maaragtay fara badan annagu waxaan ku naalaa meel strategically muhiim ah dekadihii Soomaaliya oo dhan baa nagu liilsan xaggana 100 milyan ee kale ee dadka ah baa nagu liilsan taasi waxay noo siinaysaa fursad markaa inaan noqono dad maaragtay baraarugsan oo maskaxiyan u bisil oo faa'iidada ugu faraha badan maaragtay heli kara wasiir sidee bay kula muuqataa in wasiir u soo gudbaya Somaliland ay yihiin waqtiga cusub ama xaaladka cusub dalka caqabada hadda ugu muhiimsan ee xagga ganacsiga ka jira dadku ay marka soo jeedinayaan ama ha noqoto ganacsatada dawlad deegaanka joogta ganacsatada ama ha noqoto ganacsatada Somaliland ama goobaha kale sida Djibouti ama Puntland oo kale ka imanaya dhamaantood hawlo ay tabanayaan baa jira taas waxa ugu muhiimsan waxyaabahan xagga lacagta qalaad hard currency-ga sarifka lacagaha qalaad qabada ugu badan ee dawlad deegaanka iyo Ethiopia ka jira waa dhanka dollarka ganacsato badan waxay ku soo dhici laadahay dollarka wixii wax lagu soo iibsanaya waa dollar qorshe ma u haysan aad arrinka si dadkii ay waxna u soo iibsan karaan sarifkii suuqa lacagaha oo isbedbedelay oo maanta heerku maraya aad ogtahay $100 5,000 iyo wax weeyaan iyo minaamin si ordaya وما حق قرشها وسارة إن أرمها عاد دردر جلسان أما أدو حكب بدشان أما أدو أفضل لسان كان عصتضو إن أيلا محويا يعني.